gudoomiyaha xisbiga Ucid ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi injineer Faysal Cali Waraabe ayaa habeenkii xalay kulan weyn kula qaar ka mid ah dhalinyarada iyo waxgaradka gobolka Togdheer Hotel City Palace ee magaalada Burco. haddaba munaasabadan oo ahayd mid kulmisay hawdqoorka iyo dhalinyarada gobolka Togdheer ayaa qaadatay muddo dheer iyadoo ugu horeyntiina uu halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeediyey gudoomiye Faysal Cali Waraabe. Soomaaliland ma dadku haysta wadada imka abuumay dadka xoolaha lahaa ee taajiriinta ah ee barwaaqada isaga wada ruuxo kale markii magaalada ka baxeen ee migirtay wada dhinteenba magaalada Soomaaliland biyo marka laga saaro saddex bilood ku bacdaysay SNMGC magaalada Burco tii loo soo horgalay saddex iyo toban sarkaal ayaa ku dhintay wiil dhaxli taariikhda ma garanaysa ragga ku dhintay saraakiishin قولي مقد نولا تهم مجاهدين ما معي والمجاهدين هو اللي مطلع واحنا سمينا الدولة لوه اللي إن شاء الله تعالى أنا معارض ضمية أنا المالي عندنا أنا سد تحت حسبك سمينا الدولة بدنا ما قرر يا لو مدولة يا إن اعتراف كين هلو إن دت كين المدينة إن دت كين هرمر كين هرمر لطابة كان waxaan doonayaa aan tacliinta bilaash ka dhigna insha Allah tahay graduate university education sameeyna dariiq heemigeena waan xawaan xirfad baan baranaa waxaan sameeynaa insha Allah taala ICT gan xoog saaran geesta kalena gabagabadii munaasabada ayaa goobtaasi su'aalo dhowr ah lagu weydiiyay injineer Faysal Cali Waraabe waxaana ku jawaabay sida tan aydan ya aniga daawo masini hadda loo kala Soomaaliya waa kulamaaya أنا قاعد لكن لو ما هيسينه أنت ما هيسين وما هيجين كل ما مرن أنا كيف أشتغل اسمه موجود أنا كذا بكرة نيجينا يا علاج سكير فرشوا تري يوصل هالسون وصلنا سوا عالو إن هذا نقصنا المسك تشوفه هل كارثة كل قارئ هو يشوفه هاي مسؤول نسيب كل يعطانا مشوفي isku soo wada duubo kulankan uu gudoomiyuhu la qaatay dhalinyarada gobolka Togdheer ayaa ku soo beegmaya xilli ay dhawaan xisbiga Ucid ay ku biireen urur dhalinyaro oo la magac baxay Samadoon Maxamed Taajin Maxamed Chesto Africa Cable TV magaalada Burco.